السلام عليكم أصحابتها دمانتهم والسلامي نروش هذا كبدل هل سنة جدهيد وموضوعنا ما تان كسوق هذا النوع فيديو جن وحنا سوق هذا طنا أفر عادوات دي أصلا سوق هذا جاية مليونير أنا مقال هنا بلابنا سوى تقلبات سبحيهين سور دوّا مر لبعض حتى أنا قاعد صوت هاي مقعي وتفتح مر علي وحنا سكر علي يقول كرتاح تفتح موتينو قصة دوّا أنا كي موتينو لايف ستايل واحد كلا فيديو دي مقالة كسابسن ستيل كفاشن كجروم كدريسين كوحيا بحث أنا مقال كنا هروب بلعبنا قطب ككوبات إيه هدي القبض انتوك هادي مليونير وسبحي أديك أجور ركعة marka laga imaado diinteena maxaan ee islaamka oo inagu waajibisay inaynu habeen barka hurdada ka kacno si aynu waajibaadkeena diinadu gudano haddana waxa fiican markasta inaad subaxii goor hore kacdo xagga caafimaadkaaga xagga diintaada xagga mustaqbalkaaga dhow iyo kan fogba dhinac kasta inaad goor hore kacdo waa u muhiim noloshaada subaxii adiga oo goor hore kacay haddii aad jimicsana ku darto waa hadiyada ugu weyn ee aad maalintaa oo dhan aad helayso sidee ugu fikirtay inaad wax qabsato oo mustaqbalkaaga dambe uu hagaago adiga oo hurdada ku gaaraya 10 subaxnimo iyo 2 duhurnimo sidee ugu fikirtay in caafimaadkaagu uu hagaago adiga oo maalintaas oo dhan hurday oo aan wax exercise aan samaynin waad garan kartaa marka aad ka kaashato maskaxdaada saliimka iyo caqligaaga inayna marna ku soo jeedin hurdada aad ku raagayso mustaqbal fiican ka kac hurdada xaajiska iska saar bedel noloshaada oo ka fikir caafimaadkaaga xaqa diintaadu ay ku leedahay iyo sidoo kale xaqa ay naftaadu kugu leedahay qodobkeena labaad noloshaadu yaani noqon bilaa qorshe ee samayso plan schedule plan ku siinaya maalinle bille sanadle 6 biloodle kolba ka jeceshahay markasta noloshaadu way noqotaa nolol ku dhisan plan iyo qorshe nolol bilaa qorshe ah waxay ka dhigan tahay adiga oo socda meel aad u socoto iyo ujeedada aad u socotana aan garanin qorshe maalinta aad ku jirto wiiga aad ku jirto bisha kugu soo socota una deji jadwalku waa mid ka mid ah siraha ugu waaweyn ee ay isku dhaafaan bini'aadamku ayna adeegsadaan dadka caqliga u saaxiibka ah jadwal u samee noloshaada qalbigaagu waa xasilooni iyo nafis badan yahay marka aad xisaabtamayso ee aad jadwal ku xisaabtamayso jadwal ku qoran oo ku sheegaya minadka taagan tahay iyo saacada taagan tahay waxa aad qabanayso jadwalku noloshaada qaabiya u yeelaya waxa aad ka fikiraysaa wixii dantaada ah oo kaliya taa iyo mustaqbalkaaga waxa aad noqonaysaa qof hamile markasta diyaarsan waqtigiisuna xisaabsan yahay oo aanu bilaash kulmin si aad jadwal u dejisato waxaad u baahan tahay marka koowaad in aad meel jawi degan aad tagto oo ayna dadku ku badnayn warqad iyo qalin soo qaado qor dhammaan hawl kasta oo aad ku fikirayso inaad qabato tan ugu weyn ilaa tan ugu yar hawsha ugu soo horeysa ilaa tan ugu fog ee aad ku fikirayso inaad qabato ee maskaxdaada ku jira marka aad dareento inaad wada qortay dhammaan hawlihii aad ku fikiraysay u kala qaybi hawlahaas qaybo qaar aad maanta qabanayso hawl aad bari qabanaysid qaar kale oo aad isla wiigaas ku qabanaysay qaar kale oo aad qaban lahayd 2 wiig ee soo socda sidaa u wad ilaa dhammaan hawlihii aad wada qoratay ee aad qalinka iyo warqadda ku qortay aad wada meeleynayso isticmaal kalendarka mobilkaaga kugu jira ama meemada mobilkaaga kugu jirta si ay ku xasuusiso wixii aad qoratay ama isticmaal buug xasuus qora ama markasta waxaad isticmaali kartaa wixii kuu fudud ee markasta ku xasuusinaya jadwalkaaga diyaarsatay qodobkeena saddexaad noloshaada ka saar dadka ku niyad jabinaya ee hoos ku dhigaya kuna bedel dadku dhiirigelinaya wax ka faa'iideyso noloshaadana kor u qaadaya marba marka ka dambaysa ee ay noloshaada ku soo bataan dadka aan wax ku ogolayn ee ku niyad jabinaya hoosna ku dhigaya waa marka aad ugu dhowdahay in aad nolosha ka dhaxdo hamiyadaada oo dhanna aad ka niyad jabto adiga oo ficil wanaagsan qabtay maanta haddii saaxiibka uu kugu saxbatumo kuguna dhiirigeliyo kuguna hambaliyo hawsha aad qabatay maanta ama ha weynaato ama ha yaraato waad dareemi kartaa xaddiga niyadaadu ay kor u kaxayso kuna sii dhiirinayso inaad hawl kale aad qabato oo wanaagsan bilcagsi halka saaxiib kale marka aad u sheegto isla intii aad saaxiibkaaga hore u sheegtay uu ku odhanayo waxaan baad ii sheegaysay macna darada waad dareemi kartaa kelmadaas oo khaliya inta ay hoos u geynayso niyadaadi markasta ka fogow oo ayar nagu bax noloshooda qof kasta oo aad ka dareento
in aanu garanin qiimaha noloshaada qadarinayna qalbigaaga. una dhowow hana ka dheeraan qof kasta oo garanaya qiimahaaga, kuguna saxbatumaya oo kugu dhiirigelinaya ficil kasta oo wanaagsan oo aad qabato. marka aad niyad jabsan tahayna ku dhiirigelinaya, kor kuu soo qaadaya, qalbiga kuu dhisaya, kuguna dhiirigelinaya inaad hamiyada aad gaadho. iska daa iska fadhiga, maalin kastana isku day inaad barato cilmi cusub iyo xirfad cusub. waa qodobkiina afaraad ee u dambeeya ee kaa dhigaya milyaneer. cilmigu maaha keliya taa inaad buug iyo qalin qaadato, cadceeda aad sii marto ama aad kalahdo si aad wax u soo barato. teknolojiyadda waxay jiilkeena hadda ka dhigtay in adiga oo gurigaaga jooga aad barato cilmi kasta oo aad u baahan tahay, adiga oo aan wax dhib ah ka marayn, kuuna bilaash yahay, adiga oo usii dhex maraya internetka. ugu yaraan balqiyaas haddii aad hal kelmad ha u yaraatee aad barato, waa cilmi naftaada usoo kordhay. xirfad kasta oo aad ku fikiraysa inaad barato, mid xoog lagu qabanayo, mid gacan lagu qabanayo, mid maskax laga qabanayo, xirfad kasta adigaa isbari kara oo niyadaada kusoo dhacda, adiga oo adeegsanaya khadka gurigaaga kugu jira ama dhaatada isticmaalayso, una sii dhex maraya kombyuutarkaaga ama moobilkaada haysato. isku day inaad social mediaha uga faa'iidaysato xagga wanaagsan. ugu dambeyn waxaan rajeynayaa inaad nala soo gaadhay ilaa dhammaadka fiideogan. muuqaalkan oo ku anfacay, fadlan hadduu muuqaalkan ku anfacay like noo saar, waayo waa dhiirigelintayada. sidoo kale subscribe saar channelkan. ha ilaawin inaad commentiga nooga rabta fikirkaaga, waa noo muhiim. sidoo kale waxaad igala socon kartaa social media platform akoonada ku leeyahay, gaar ahaan Instagram-ka oon aada ugu badanahay, kaasoo soo geliyo fiidiyo iyo sawiraan ku saabsan inta aan YouTube ka soo geliyo oo kale. ha ilaawin channelkayga Moutinho Lifestyle inaad subscribe saarto, kaas oo aad ka helayso muuqaalo ku baraya nolosha, saa u sixi lahayd waxyaabaha noloshaada ka khaldan, sidoo kale waxyaabaha noloshaada kor ugu qaadayso. waan salaamay dhammaantiin, maxsalaama, bye bye.